السلام عليكم وردقدقة oo hadda wakaaladaha wararka ee dalalka carabta ay qorayaan ayaan ku hayaa soo dhawow muuqaalkan share garay oo meel fog gaarsi caawa in la kala furan doono u egtahay ka hor kulanka bari Sharm el-Sheikh ka furmi doona ee xaaladda dhulka marinka Gaza lagu soo afjarayo haddaba yaa kala furanaya Turkiga waxa uu digniin u diray 3 dal oo Carbeed si gaar dal waawaaniyay oo si tartiib wax ugu sheegay laba dalna si adag ayuu oo la hadlay xaaladda caawa ma fiicna soo dhawaada hal share garay muuqaalkani like si aragtidiina marka muuqaalka aad dhameysataan ha iga hor dhicina qaybta commentiga iigu reeba waati 20 qodob Mareykanka lagu soo dhoobay oo Trump uu soo sameystay yeelkeeda dawladda dalka Mareykanka waa laga ogolaaday ururka xaquuqdirkaana waa ogolaaday Israa'iil wali waa ka madax galgalanaysaa dulduleelay u raadinaysaa professorkaas uu Trump soo diyaariyay si wixii la isku afkartay loo sii amba qaado oo loo meel mariyo warkana loo cadeeyo wafuud ka kala socda dalalka carabta ee saddexda ah Qatar Saudi Arabia Imaaraadka iyo dawladda Masar oo martigelinaysa iyo ururka xaquuqdirka xubno ka socda iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga oo laga yaabo ayay tiraan dul agency galabta inuu taga shirkaasi xagee Masar sarta ka qorunsan tahay shirka Sharm el-Sheikh uu ka furmaya sarta waxay ka qorunsan tahay waxa soo baxday warar sheegaya in Saudi Arabia iyo Imaaraadka Carabta iyo Qatar ay rabaan in xaaladda dhulka marinka Gaza ay noqoto jiid aan ku jiiday waxa laga yaabaa in isweydiinaysa marka sababtu waxay tahay maadaama qarashka ku baxaya dhismaha dhulkaasi iyaga laga rabo oo Trump iyaga uu ku xukumay si hawsha loo ballaariyo waxay rabaan ayaa la yiri in la fashiliyo kulankan shuruudaha ururka xaquuqdirka uu wato waxa ka mid ah in aysan hubka dhigi doonin weligood iyo in maxaabiista aysan sii doonin tan iyo inta askari Israa'iiliya uu dhulka marinka Gaza ku jiro labadaas qodob Israa'iil waa soo tuftay waxa buunbuuninayo oo labadaas qodob yeel oo ka daba wadana oo hadii ururka xaquuqdirka lagu qasbo labadaas qodob iyagana ma yeelhayaan shirkan waa fashilmaya sidaas daraadeed waa si ogyihiin labada qodob ee shirka lagu fashilin karo Qatar iyo Imaaraadka ayaana fiitay fardheeraatay noqday dawladda dalka Turkiga waray soo saartay marka barta Twitterka wasaaradda arrimaha dibadda waxa lagu yiri dalalka Carbeed ee shirkani ka qayb galaya ee qaybta ka ah hal taageero dawlad Falastiin inay dhisanto laakiin waa in laga joojiyaa ducaynta iyo farafareynta heshiiskan lagu wado waxa dhintay 65,000 oo qof oo caruur iyo haween isugu jira sidaas daraadeed u damqada inta hartay si ay nabad ugu noolaadaan warku wacdiya dawladda dalka Masar waxa loogu baaqay in inta karaankeeda ah ay ku bixiso in shirkani uu guuleysto oo meel dhexe la isugu imaado tasma fahant bari uu furmaya Sharm el-Sheikh uu ka furmaya Carabtina waa imaanaysa iyagoo fashil wada Turkiga iyo Masarna waa diidan yihiin halkan aad ka heli doontaa wixii soo kordhay aad baad maasan tahay warar kale oo dheeriya soo